بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا أحمد نور محمد عبد الله waxaan ka hadlayaa shaqaaqada ka soo cusboonaatay dhulka la isku yiraahdo Puntland iyo maamulka Hargeysa. waxaan dhageystay runta ahaantii labada shacbi siday u hadlayaan iyo dad ka mida maamulada siday u hadlayaan. shacbigu siduu u wada hadlay way wanaagsan tahay. maamulada waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo, ha la isdejiyo, wanaagga ha laga shaqeeyo, Soomaalinimada ha laga shaqeeyo, ha la iska dhaafo dhibaatada shacbiga hadhow ku dhacaysa. waxa weeye taariikh haddii la hilmaamo dhib bay leedahay. dadka reer Khaatumo horta wada dhalasho reer Puntland bay la dhasheen. taariikhdooda iyo nidaamkooda cadowgu marka uu yimid wadankana reer Khaatumo waxa ay ahaayeen dad aan iyagu habad u noqon, la hoggaansan, isticmaarka uu sararanaynin oo diiday oo ka gilgishay 21 sanana la dagaalamayay midnimada Soomaaliyeed iyo isku xirka Soomaaliyeed iyo qaran Soomaaliyeed yayna u halgamayeen. haddeerna meeshii bay taagan yihiin. soohodimaha isticmaarku ka tagayna dhulbahante dhulkiisa asagaa iska leh, isaaq dhulkiisa asagaa iska leh, warsageli dhulkiisa asagaa iska leh, ciise dhulkiisa asagaa iska leh, gudubiirsay dhulkiisa asagaa iska leh. nin walba meel buu degan yahay. waxaan aad iyo aad aan u jeclahay maanka inuu shaqeeyo, maskaxdu inay shaqayso, fikraddu inay shaqayso. 21 sano waxaanu u dagaalamaynay ma dhici karto 2 beri iyo 3 beri dad riyooday taladooda inaan qaadanno. aniga inima diidani, dad Soomaaliyeed baa tihiin, walaalahay baa tihiin. idinku haddaad keligiin go'aysaan idinka idiinta Allah. hase yeeshee dhulbahante min daraf ilaa dacal anoo og qalbigooda ninka dhashayna ah, warsageli anigoo og, ciise anigoo og, gudubiirsay anigoo og. keligiin bay idinku tahay. xataa reer Hargeysa isaaqa laftigiisa 95% waxay rabaan midnimada Soomaaliyeed. hase yeeshee dad baa ku shaqaysanaya maamul siyaasadeed iyo arrimo siyaasadeed iyo dana siyaasadeed ku wada. waxayna leedahay ka leexda ummadda Soomaaliyeed. 2 nin iyo 3 nin ee Khaatumo wareerinaya ee malay badda ku dhex dhacay ah. waxaan idin leeyahay waa in aad garataan inaydna waxba ka taraynin dhulbahante dadka u adeegaya isaaqa ee dhulbahante ka tirsanow. dhulbahante waa dhulbahantihiisii. waxa weeye arrintaa ayada ah waa in aad garataan dowgiina wuxuu yahay
iyo habka la idinka doonayo iyo sida inaad u fikirtaan la doonayo waa inaad ka shaqaysaan dadka isku xirkooda iyo nidaamkooda iyo meesha aad ka tirsan tahay magaceeda iyo haybadeeda waxaa la yiri waa la doogaya yaan la dacaroon shaki ma laha ummadda Soomaaliyeed aakhirka inay heshiinayso isku meelna isugu imaanayso laakiin ha iskaraama daraynina tuka cambaar laha noqonina is aruuriya oo sharafkiina iyo magaciina iyo dadnimadiina ilaaliya anigu garaadada dhulbahante dhammaantood anigoo xurmaynaya oo sharaftooda iyo karaamadooda xurmaynaya dhaqdhaqaaqoodana badanaaba si raalli aan ka ahay aan aad iyo aad ugu taageerayo anoo dhowr jeer ammaanay ayaka haddana waxaan maanta jeclahay maalin dhoweyta hadalkii uu ku dhawaaqay garaad jaamac garaad cali ee ahaa annaga noomacda soo qaadin waxaad soo qaaday intaas waqtigii ka dambeeyo dhan garaad jaamac garaad caliyow waad aamusan tahay shib baa tahay waxa dhacayana waa u jeedaa hadallada wararka dhacayana waad u jeedaa garaadkii guudna waa lagugu tilmaamaa kakac hurdadan ku iri kakac hadal lama aamuse idaha iyo riyaha waxay u kala qiimo badan yihiin iduhuna waa aamusan yihiin oo bahalku markuu cunayo lagama qaban karayo riyuhuna way qayliyaan waxa weeye nin garaadkii guud sheeganaya oo aamusan oo shib ah de garaadadii kale see isugu duba dhacayaan sidee baa la isugu wanaagsanaanayaa ayagaaba hadda cadcad oo fiican oo dhaqdhaqaaq sugubinaya dowladdii dhexe u tagaya meel walbaba wax ka qabanaya garaad jaamac garaad cali ninka kula hadlaya waa axmed nuur maxamed cabdille maalintii horena saa markaan kula hadlaad hadashay hadeerna waa kula hadlay kakac hurdadan ku iri waad hurdaysaa hurdada kakac ninka qaldanna waryaa waad qaldan tahay dheh dhulbahantaha kala jeclaanin haddaad garaad guudin noqonayso oo aad tahay waa inaad dhulbahantaha kala jeclaanine runta qof walba aad u sheegtaa waryaa ka joogso waa inaad tiraahdaa xumaanna ma aha waa wanaag waa sharaf waa garasho waa dareen waa xisaabtan waa baawaha iyo qiimaha ilaahay ku siiyey hadalkaygii waxaan ku soo aruurinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayre adigana meeshaas ka wad kormeerka aad ku marayso oo meel walbaba aad ku mari doontana ilaahay ha kaas kugu samata bixiyo ilaahay khayr ha kugu siiyo waa kugu taageersanahay waxa dhaqdhaqaaqa iyo waxa aad suubinaysaan adiga iyo xasan qali khayre ra'iisul wasaarahaga iyo adiguba boqolkiiba boqol shacbigu waa in taageersan yahay anigana shacbiga Soomaaliyeed waxaan u ahay laf dhabarta meel walbaba jecel inay hormaraan maatada iyo dhibaatada iyo wareerka ku dhacaya shacbiga Soomaaliyeed meel kasta oo joogan min raas Kamboni ilaa raas Casayr ninka gubanayaanahay ummadda oo dhan waxaan jeclahay inay isku xirmaan waxaan leeyahay siyaasiyiinta hargeysa joogaahi ha bedeleen hadalka Soomaalinimo ha ka dhigeen islaan ha ka dhigeen iimaan ha yeesheen shacbigooda ha ku soo dareen Puntlandina waxa weeye cidna ha gardaraysanina laakiin haddii la ini gardaraysto de waa waajib weeye runna waa inin sheegayaaye ninna meeshuu ka dhashay cidlo ugama leexan karo dhulbahante iyo majeerteen waa isla dhasheen waa niman reer hartiya arrinta yeysa sahal aysa u dhicin ma dhici karto in dhulbahante oo dhiigooda aqaano dagaal markuu dhaco ay arrinta fiirsanayaan ma fiirsan doonaan mara dhacaysa taas joojiya annaga Soomaali baan isla nahay Soomaali oo dhan dhulbahante waa jecel yahay marka idinku qasab bilaabinina laakiin qasab markuu bilowdo waxa weeye ninna walaalkii kama leexanayo nin walba waa meesha u dhashay haddii kale diinta islaamka dambi ka galeynaa hadalkaygu waxaan ku soo aruurinayaa ilaahow Soomaaliya barakee ilaahow qalbigooda isu soo jeedi ilaahow isku xir ilaahow kibirka iyo kamiraysiga iyo khayaanada iyo laalaabka ilaahayow ka bixi
وأحمد نور محمد نينكا إن الله هدلاياه وحين إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سلامة إن السيو